سؤال هذا أنقل وحويان خلاف كلا يسكو هيو هذا بروفيسور بشرحي وحوي لبضي قرش الله يسمى وافشين وامل طلبات وحويان سida ogtihiin labadii sano u dambeysay dawladdan federaalka ay markay timi awal waxay ahayd 3 zoon ba wax loo siin jiray dadka hay'adahan wax baxshaa 3 zoon bay Soomaaliya u aqoonsanaayeen Somaliland Puntland iyo South Central qolana qolo wax looguma dari jirin toos baa loo siin jiray qolada waxa marka murana oo ka dhex jiray ma jirin dhibtu waxay timi marka dawlad federaal ah oo rasmi ah baa timi waxa la wixii macaawimo ahaa ee bixinayna iyada la soo marinaya khilaafku horta markaas uu bilaabmay wuxuuna ku bilaabmay dawladii dhexe laba arrimood oo laba khalad oo ay gashay oo ilaa hadda ay ku jirto waa marka ugu horeysay bacdama iyada lacagtii la keenay oo la yiri qaybi dawlad goboleedna hadda ay marayaan 5 ama 6 waxa weeyaan intay u yeertay dawlad goboleedii may oranin waxana yaalay maxaa inoo qorshaa maxaa la siiyaa state kasta maxay mid walba u daran qorshihii in la wada dhigo oo marka uu noqdo qorshe national oo lacagtii lagu sareeyo dawladda federaalka ilaa hadda laga hayo waxaana muuqata inay ka warwareegiso iyadoo isticmaalaysa xeelado badan xeeladaha waxa kamid ah hadda uu sheegay wasiirka oo ah barish dhacaya lagu yeeray qorshe la sameeyay oo la soo diyaariyay oo ilaa donorski fadhiyaan baa lagu yeeranaa ka soo qayb gal hadalka xataa halka aad ka tiraahdaa waxa weeye wax soo dhamaaday ayuu baa la keenaya waa tab kamida waxa kale oo kamida tabaha ay isticmaalaan wixii inta qoraan in general qoraan oo halka ay ahayd in la state Puntland waa inta state Jubaland waa inta wixii la jajabiyo wixii oo dhan iyagii inta isku duubaan wax oranaya dawladda dhexe ayaa maamulaysa taasina marka waxay keenaysaa lacagtii markay gacanta ku hayaan hadii ay ahaan niman hadii beddelka khiyaar caadil oo dadkii wuxuu qaybinaya daqaylo ma timaadeen siday doonaan bay isticmaalayaan way maamulada ay diidan yihiin ama aan jeclayn waa qadiraya kuwa kale waa siinaya waxyaalaha marka hadii beddelka leeyahay Puntland khilaafka ka dhaxeeya waxyaalahaas ka mid ah waxa jirta hadda soo qaato tusaaladii weydiisay waxa jira maxaa African Development Bank donors kale lacag soo mariyeen lacagtaas oo Soomaaliya dhan loogu talagalay dawladda dhexe la yiri ha qaybiso lacagtaas waa lacag aad fara badan waa bilyan meel la isugu yimid ay ka ogolaatay in dawladda statesku ay la qaybiyaan ma jirto waxaan halka hadda hayaa oo tusaale idin siin karayaa qayb kamid ah lacagtaas waxa loo qaybiyay 6 sector horumarinta Soomaaliya hadda 6 sector laga dhigay infrastructure ko dhan la isu geeyay meel baa laga dhigay oo dekadihii iyo wadooyinkii iyo airportadii waxaas social maxaan ku raay services caafimaadka tacliinta mid baa laga dhigay governance mid baa laga dhigay yani 6 sector baa loo qaybiyay lacagta 6 sector in loo qaybiyo baa qorshaysan waxaan anigu hadda hayaa xogaal u hay infrastructure sectorka infrastructure kaabayaasha dagaalaha ah qorshaha 5 sano soo socda 2019 shantaas sano qorshaha African Development Bank lacagta uu Soomaaliya siiyay ee dawladda dhexe loo dhiibay baan doonayaa inaad ka siiyo sida ay u qaybisay loo dhiibi doono tafaasiil waa loo dhiibay wala abnu galay shirkeeda loo dhiibi doono hadda qorshaheedii la finalize gareeyay way waxaan rabaa fursad baan ku siinayaa taa lacagta qiimaheedu totalkeedu waxa weeyaan 1 bilyan 137 milyan iyo 700 baa loogu talagalay infrastructure Soomaaliya oo dhan okay dawladda gacanta loo gelinayaa way qaybisay sidoo qaybisay marka doonayna wax ka tuso oo keentay in khilaafkan uu yahay saldhig noqdo oo la kala fogaado oo xiriirka xataa uu gaaro heerka la socota lacagta 1 bilyan iyo 137 milyan iyo 700 kun ah laba ay u qaybiyaan dawladii dhexe iyadoo ciidna ka talagelin 693 milyan waxay u qoodayeen wadooyin sectorska kale 444.7 milyan ayay bay u qoodayeen qorshaha ay soo saareen
693 milyan ee wadooyinkaas sida u qaybiyeen baan wixii ka tusaya 693 ka mid ah waxay yiraahdeen waa capacity building waa kormeer waa anaga ah no problem 670 milyan oo wadooyinka ba soo haray way qaybiyeen iyagoon cidna kala tashan waxay u qaybiyeen sida soo socota Puntland 670 ka 2 milyan bay ka siiyeen 670 milyan oo wadooyinka 2 milyan baa Puntland laga siiyay 2 milyan sida u qaybiyeen adii khareeya wadada Muqdisho Afgooye Baydhaba بلد حاو 229 مليون بان لو قودي ودada Muqdisho Balcad Jowhar بلد weyne gaal kacayo 153 milyan baa loo qorsheeyay wadada Muqdisho Marka Kismaayo Liboy 202 milyan baa loo qorsheeyay wadada Berbera Addis Ababa corridor waxa loo qoonday 65 milyan mar labaad waxa lagu soo noqday hadana rehabilitation ka wadada Hargeysa kala bayd 4 milyan baa loo qoonday 0.5 waxa soo noqonaysa 70 milyan wadada gaalkacay wadada Ribeerka ama dib u habaynta wadada Hobyo gaalkacayo dagaari badiirada Ethiopia 8 bilyan waa galmud wadada gaalkacayo galdogo waxa loo qoondeeyay 2 milyan 2 milyan 670 ka waxa Puntland loo qoondeeyay 2 milyan waayahay waxaan rabaa marka in la gogoosto marka percent loo eego waxa weeyaan 670 ka marka 1000 meelood loo qaybiyo 3 meelood ma laga siiyo bilaa dekadaha lacag baa loo qoondeeyada waxa la soo qoray lacagta loo qoondeeyay dekadu waxa weeyaan 36 milyan oo ballaarin ah iyo maxaan ku raadin dib u habayn Kismaayo upgrading Kismaayo Mogadishu port upgrading Mogadishu port labadaas lagu soo koobay boosaaso waa laga tagay wali way dhimatay waayahay waxaan rabaa inaan gogoosano oo waxyaabo badan ay hagaagaan waxaan rabnaa barnaamijkan 7 maalmood buu socon doonaa siyaabo fara badan baa looga dhalgi doonaa laakiin maanta waxaan rabnaa inaan taydii nusba nuski kala waxay ahayd warbixintaydu dhinaca infrastructure-ka baan ka hadlayay waxaan yahay 1 bilyan iyo 137 baa loo qoondeeyay ay qoondeysay dawladda dhexe waxaan example ka soo qaaday 670 kii ahaa wadooyin kuwii kale ay dhinaa maxay ku leedahay Puntland haddii 670 kii wadooyinka laba laga siiyay kuwii kale maxaa laga siiyay waxaan rabaa halkan inaan ka cadeyno 440 ayaa ah qaybta kale aan wadooyinka ahayn 444.7 milyan 444 taas Puntland waxba kuma leh meel laga soo qaaday ma jirto taas ama labada milyan loo soo qaaday lama qaadin yani 447.7 milyan oo taabanaya qaybta national housing ah qaybta maxaa ku yiraahday environment-ka qaybta energy iyo water-ka Cabduqaadir halkaas ina iftiimisid baa la rabaa 440 milyan maxay la xiriirtaa wasiiradu waxay codsadeen waxaan sheegay in infrastructure-ku loo qoondeeyay 1 bilyan يعني wuxuu ka kooban yahay qaybtan ama sector-ka kaabayaasha dhaqaaluhu wuxuu ka kooban yahay wadooyinka airportada aviation-ka dekedaha energy-ga biyaha yani waa 8 qaybood
sideedaas waxa la isugu geeyay in la yiraahdo yani xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha lacagta inta leeg baa marka u qorshaysan lacagtii waxaan idin sheegay wadooyinka inta badan iyada la siiyay 670 intaanu ka helnay 2 milyan ma noqdo aan idin sheegay kuwii kale maxaan ka helnay kuwii kale hal senti hal dollar kuma qorra kulli waa la generalize gareeyay dawladda dhexe ayay gacanta ugu jirtaa sidii hadda wasiiradu sheegayay dawladda dhexe qaabkay u dhaqmaysay iyo in laga 100 laga soo saari waayo hadda wasiiradu inoo sheegay halkan 440 milyan wax ma ka soo saari kartaa haddaan wax ku magacaabanayn yani mashkiladda waxa keenay iyaguna ay ka cararayeen dacwadana ay ka taagantay khilaafkan uu ka joogo wax weeyaan waxa marka la qorsheynayo hal wada joogo sidii maxamed xasan marada uu sheegay guddigii la qabtay inuu fadhiyo la wada qorsheeyo marka wax lagu foormo lagu heshiiyo laakiin way ka wareegeen kaligood baa soo sameeyay 4 cisho ka hor shirkii lagu ogolaanayay 4 maalmood markay ka harsatay bay soo gudbiyeen 4 maalmood maxaad ka gaarsiin maxaad ka waagaag marka yani waxaan hadda rabaa sheego in qaybihii kale oo dhan 440 ka aynu ka qatarnahay oo inaan wax ka suuqeeyay waa mahadsan tahay